بسم الله الرحمن الرحيم waxaan bartanka uga jirnaa casharadii imtixaanaha ahaa maadada xisaabta gaar ahaan fasalka form 4 chapterka koowaad maanta waxaan ka hadli doonaa example 1.5 iyo 1.6 trigonometry waaya example 1.5 wuxuuna leeyahay verify waxaa caddaynaysaa verify waxaa caddaynaysaa the following equation in is an identity equationkan amba isla egtan soo socota inay tahay mid identity ah oo isku mid ah cadday soo proof waa kana waxaa la isiiyey sec 3 by over 2 minus x is equal minus cosec x sec 3 by over 2 minus x intaan oo wada jirtaa waxay la mid tahay minus cosec x ay la mid tahay laydhaha warkaas ma isku mid ah mase isku mid maa cadday markii noocan oo kale lagu siiyo ee caddayn aa u baahatid waxaa qaadanaysaa dhinacan waxaa loo yaqaanaa left hand side dhinacan waxaa loo yaqaanaa left hand side aa loo yaqaanaa left hand side aa la yidhaha left hand side dhinacanna waxaa la yidhahdaa right hand side aa la yidhaha labada dhinac ka mid aha la qaataa marka left hand sideka amba right hand sideka mid ka mid aha qaadanee waa ka shaqaynay tusaale dhinacaana qaadatay waa shaqaysa saa u waday waxa inta yaalaa soo baxa minus cosec x ka soo baxayso marba haddii tan la furfure cos minus cosec x ku dhammaato waxaa kuu caddaanaysa left hand side waxa yaal iyo right hand side waxa yaal inay isku mid yihiin sidaa darteed waa sax waa proof waa saxantaa leeda amba right-ka la qaataa waa la shaqaynaa waxa dhinacan yaala laga soo saaraa marka muhiim waxa ah labadoora dhinac ka mid a inaad qaadatid oo aad dhinaca kale ka soo saartid waaya aan shaqo bilowna marka hadda labada dhinac waxaan qaadanaynaa hadda dhinacan waxaan qaadanaynaa left hand side kan qaadanaynaa mar walba dhinaca oo complicate-ka ah oo in la oo isku dhex jirkiisa uu badan yahay ayaa la qaataa shayga midka la kala jebi karaa mar walba fudud inaad qaadatid solution aan leenahay intana solution inkor waxaan leenahay we work waxaan ku shaqaynaynaa with more complicated left hand side dhinaca bidix oo ah more complicated-ka ah ayaan qaadanaynaa solution dheh noo soo qaadmuga dhinaca bidix maxaa yeelay sec 3 by over 2 minus x 3 by over 2 minus x marka halkan migi la taagan sec trigonometry functionska waxay ka ahayd farac asal ma ahayn asal waxa ahay sin iyo cos iyo tan sec iyo cosec iyo codna waxay ahayn farac saddexda faraca muga saddexda asalka reciprocal ka hor ahayd amba cagsiga hore marka sec intay ka timide waa waxay farax ka tahay cos one of a cos ay u dhigantaa sec marka maxaan leenahay we know that waxaan ogsoonnahay sec x inay la mid tahay one of a cos x sec anoo haysto waxaan ku bedeli karaa one loo qaybiyey cos oo angalka x-ka ah halkan waxaan haysanaa muga secan haysanaa sec x meeshaan dhigayna 3 by over 2 minus x oo wada jira haysanaa waxaan ku bedeli karnaa muga one of a cos oo intaan wata ku bedeli karnaa ku bedele one of a cos 3 by over 2 minus x meeshaan x iyo x ka dhahay maanta 3 by over 2 minus x iyo 3 by over 2 minus x oo wada jiray wataa marka waxaan ku bedelinaynaa cos 3 by over 2 minus x halkan markii la taagan muga costan hooseeya waxay u qorantaa cos a minus b eedu waa 3 by over 2 minus x x-tuna waa b marka cos a minus b aan furfurayaa cos a minus b see loo furfuri jiray horaan soo barnay cos a cos b plus sin a sin b korna one keera ii soconaa one of a soconaa wanka soo qaado loo qeyb shadetan furfur muga cos a meeshaan dhihi lahay cos 3 by over 2 cos b maan dhihi lahay cos x plus sin a maan dhihi lahay sin 3 by over 2 sin x sin b meeshaan dhihi lahay sin x ay naqane marka cos 3 by over 2 cos x plus sin 3 by over 2 sin x ay noqonaysaa halkan migi la taagan yahay waxaa samaynaysaa 3 by over 2 waxaa la yidhahdaa waaxda saddexaad dhammaadkeeda waaye waaxda saddexaad dhammaadkeeda waaye amba x iyo y balen haddii la yidhaho y balenkas meesha hoose oo leenka hoose oo zeroda hoos ayaa waxaa loo yaqaanaa
3 by over 2 meeshaasay noqonaysaa amba waxda saddexaad dhamaadkeeda hore soo qaadan waxda koowaad labaad saddexaad halkaasay noqonay marka kula talageli kartaa cost 3 by over 2 waa 0 marka linekan y oo taagan dushiisa cos 0 way ka tahay maadaama lineka y oo taagan dushiisa la dhucu hayo cos 0 way ka noqonay sinna waxay noqonay minus 1 ay ka noqonaysaa minus 1 0da ka koray 1 plus ka tahay 0da cosna 1 minus ay ka tahay marka halkan waxaan ku bedelanaynaa inta waxaan ku bedelanaynaa 0 intana waxaan ku bedelanaynaa minus 1 cos 1 soo qaado cos 3 by over 2 waa 0 cos x soo celi plus sin 3 by over 2 na waa minus 1 amba negative 1 sin x na soo celi then intaan haddii 0 lagu dhifto intaan 0 ka soo baxe oo minus 1 haddii sin lagu dhiftana minus sin aa ka soo baxayso meeshan intaa waa 0 maxaa dhumaya soo baxa 1 loo qaybiyey negative sin 1kan haddii sin lagu dhifto 1 lama qoro muga negative sin bisa hoos iga imaana waxaa soo baxaysa muga 1 of negative sin aa la soo baxayso haye sin waa asal farceliya waa cosec marka sin sin waxaa 1 of sin waxaa loo qori karaa cosec ay noqoneen maadaama negative oo muga negative c negative cosec ay noqoneen negative cosec x jawaabta ugu dambeysa waa kana dhinacaanan qaadan waa shaqeyn waxaa soo baxa negative cosec neewa waxa halkan yil waayo marka sidaa darteed waxaan leenahay waa isku mid inay isku mid tahay waa soo cadaynaan leenahay example 1 halkaasaan u gudbaynaa amba example 1.5 example 1.6 waxaan leeyahay find waxaad helaysaa the exact value qiimaha saxda of each expression tibix kastoo soo socota xisaabaadkan number a sin 75 degree number b tan 7 by over 2 radian y number c sin 40 degree cos 160 degree minus cos 40 degree sin 160 degree mid uga shaqeynayna muga a iyo b iyo c aan kala qaadaynaa ayaan ku hormaraynaa solution a waxaan haysanaa sin 75 degree 75 degree special angle maahan waxaan u laabanaynaa marka 75 laba special angle oo haddii la kala jaro amba la isku daro 75 keenis si fudud waxaan dhihi karnaa 45 oo lagu daro 30 75 ay noqonay marka 75 waxaan u kala jibinaynaa 45 degree oo lagu daray 30 degree oo kala jibinaynaa haddaan saan u kala jibin waa sin a plus b waa mugaas ay noqonay muga sin a cos b plus cos x and b qaacidadan ku furfuraa marka sin waxaan haysanaa muga sin 45 degree plus 30 degree is equal aan leenahay marka sin a boskeeda sin 45 degree cos 30 degree plus ka la soo ceshadaa cos 45 degree cos 30 sin 30 degree halkaasaan ku bedelaynaa mid walba qiimeer waa naqaanaa sin 45 waa radical 2 over 2 cos 30 waa radical 3 over 2 plus cos 45 radical 2 over 2 sin 30 na waa half ku bedelaya marka sin 45 waa radical 2 over 2 times cos 30 waa radical 3 over 2 plus cos 45 radical 2 over 2 times sin 30 na waa 1 over 2 halka marka balaasaa u dhexeeya labadan waa isku dhifanaynaa labadan isku dhifanaynaa labadan radical xabaran ka qaadanaa 2 iyo 3 isku dhifanaa 6 ay noqonee hooseena waa isku dhifanaynaa marka 2 iyo 3 isku dhifo radical 6 plus dheh 1 iyo radical 2 isku dhifo radical 2 lee noqonee hooseena 4 tan waxay ka timin 2 loo ku dhifo plus tan waxay ka timin 2 loo ku dhifo stepka xiga waxaan leenahay hooseyaasha isku mid waa halka qaado sareyaashana isu geey haddaan halka qaado 4 halka qaado korna ay noqon radical 6 plus radical 2 isuma darsami karaan waa la soo qorayaa marka waxa soo baxaysa ugu dambeysa radical 6 plus radical 2 divided by 4 last answer waaye number a hel number b maxaa laga rabaa inaan halino waxaana laga rabaa tan 7 by over 2 alif 7 by over 2 alif ayaan haysanaa marka 7 by solution aan leenahay 7 by over 2 alif maxaa loo qori karaa 7 by over 2 alif maxaa loo qori karaa waxaa loo qori karaa 7 taana kala jibinayna waa 4 by over 2 alif plus 3 by over 2 alif aan kala qoraynaa bes stepka waxaan sameynaynaa intaan noo soo qaad waa 4 by over 2 alif plus 7 by 3 by over 2 alif isku yaray inta afar u qaybi by soo baxa intan afar u qaybi 3 ay imaanayso inta by over 3 ka timi inta 3 u qaybi by ka soo baxa intana 3 u qaybi afar ka imaan by over 4 halkan waxaan ku haysanaa marka tan a
plus b u dhigantaa tan a plus b furfur marka tan pi over 3 plus pi over 4 is equal waxay la mid tahan leenaha marka time pi over 3 oo tan a ah plus tan pi over 4 loo qaybiyo 1 minus tan pi over 3 times tan pi over 4 waa qaacidadii tan a plus tan b minus 1 minus tan a tan b yes tan a plus tan b loo qaybiyo divided by 1 minus tan a tan b formkay u qorataa bisle haye furfur marka bedelo pi over 3 waa 60 degree 6 degree pi over 4 waxaa waaye 45 degree amba 45 degree ku bedelo marka meeshaan maxay naqeen marka time 6 degree waa radical 3 plus time 45 degree waa 1 divided by 1 minus time 6 degree maxaa waaye radical 3 times time 45 degree waa 1 step waxaan samaynaynaa radical 3 times 1 labadaanan baabi'inayna 1 kanan baabi'inaynaa waxna bedeli ma 1 kan intaan lee 1 minus radical 3 soo baxayso waxaan haysanaa radical 2 plus 1 divided by 1 minus radical 2 amba square root 3 oo lagu diray hal loo qaybiyey hal laga jaray square root 3 hal laga jaray square root 3 square root 3 oo lagu diray hal loos dhigay hal laga jaray square root 3 oo kala haysanaa haye halkan waxaa nooga dhammaan lahay shaqada b laakiin ciladan haystaa waxay tahay radical hooseeya lagama tago in la baaba'ashaa la rabaa see loo baabi'inaya conjugate wax la yidhaha la isticmaala hooseeyaha oo calaamadda laga bedelaan kor isku dhifanaynaa intaan noo soo qaad muga radical 3 plus 1 loo qaybi 1 minus radical 3 intaan noo soo qaad lagu dhifta dheh hooseeyahan oo calaamadda laga bedelay inta soo minus ma soo balas laga dhigan kor iyo isku dhifanaynaa soo balas laga dhigan kor iyo isku dhifanaynaa waayahay radical 3 soo qaad muga isku garaac radical 3 soo qaad 1 ku dhifo waa radical 3 waa kana balas dheh radical 3 soo qaad radical 3 kale ku dhifo radical 9 ay naqane balas dheh 1 soo qaad 1 ku dhifo waa 1 balas ay naqane 1 soo qaad radical 3 ku dhifo waa radical 3 loo qaybiyo dhe markaas hooseena isku garaac 1 qaad 1 ku dhifo 1 times 1 1 plus 1 times square root 3 amba hal lagu dhiftay square root 3 waa square root 3 waa plus isagan sababto 1 kun waa plus kan waa plus square root 3 oo minus qaad 1 ku dhifo waa minus square root 3 haye square root 3 minus qaad plus square root 3 ku dhifo minus plus minus xoog badan minus square root 9 ay naqaneen step waxaan samaynaynaa labadan square root 3 bas xag marinaynaa kana radicalan ka saaraynaa saddex uga baxa labadan xag marino square root 3 oo lagu daray square root 3 kale u naqanaa square root 9 ka saar 3 uga baxa plus 1 dhigidid loo qaybiyey halkan kula joogo square root 3 dan pluska iyo square root 3 dan minuska waa isla baxayaan square root 3 minusa iyo kan plusa maxaan leenahay lama waa isla baxayaan intan waxaa kasoo baxaysa 1 minus kan radical ka baxa 1 minus 3 ay naqane 1 minus 3 noga soo baxee qaybtan kor waxaan samaynaynaa labadan square root hal baan ka qaadanaynaa horgalaasho waa isku darsan inta 1 iyo 1 y marka square root 3 ku dar 2 square root 3 naqane laba square root 3 saddex iyo hal isku darna waa 4 4 aa ka imaanay loo qaybiyey labadana kala goy minus 3 ay naqane minus 3 stepka waxaan samaynaynaa common factorka saar inta 2 ataa 4 tan 2 ka baxay 2 banaanka gey haddaan 2 banaanka dhigo 2 di banaanka gey radical 3 soo yiri plus 4 tan 2 qaybi 2 soo hare marka loo qaybiyo 2 2 dan banaanka iyo 2 dan isla baxaan meeshan waxaa ku yidha negative 1 negative inta ku dhifa mugan square root oo negative ah iyo 2 oo negative ay noqonaysaa marka waxaa noo soo baxa ugu dambeys negative 2 negative square root 3 noo soo baxaysa amba minus 2 laga jaray square root 3 soo baxaysa hadda halkan soo hormarayso caadi oo negative square root 3 negative 2 ah tira laakiin lambar iyo symbol waxaa la hormariyaa numberka la hormariyaa numberka ayaa la hormarshaa number b jawaabteeri marka halkaa ay kusoo gabagaboobaysaa number c na keen number c maxaan haysanay waxaan haysanay sin 40 degree ku dhacsan cos 106 degree minus cos 40 degree ku dhacsan sin 106 degree
sin cos sin haddaa fiirisid waa sin a minus b solution dheh qaabkay u qoranta haddaa fiirisid waxa waaye sin a minus b eedaydu waa 40 bduna waa 160 degree bes sin soo qaado 40 degree minus 160 degree aan leenna sin calaamadda minuska la raaca mayno halkan bay taaganta waxaa samaynaysaa uga labadan kala goy 40 iyo 160 kala goy waxaa soo haraysa sin 120 degree naqane sin 120 degree meeqa waa muga qiimo ahaan waxaa la isticmaala waxa loo yaqaana reference angle waaxda labaad maadaama la joogo 180 waxaa ka jare 120 180 waxaa ka jare 120 waxaa soo hara 60 60ka soo hara ay ku qiimataa 120kan waxay ku qiimataa 60 sin 60 degree haddii la joogo muxuu qaadan jiri wuxuu qaadan jiri radical 3 over 2 mayno calaamada bisay kala dugnaan doonaa maadaama radical 3 over 2 uu qaadan jiray waxaan leenahay calaamada minuska la raacay bis waxaana soo baxaysa minus radical 3 over 2 ayaa soo baxaysa jawaabta u dambeysa waxay naqeen marka minus radical 3 over 2 minuska intuu ka yimid waa calaamadan halkaas taala oo angalka la jawaabta u dambeysa waxay naqeen minus radical 3 over 2 ay naqaneen inti dhammaad daawadahayna sharafta badanow haddii halkan aanan soo gaartay waxaan kaa codsanaynaa janalka inaad noo subscribe garaysid casharkana aad laag noo tiraahid soo meel dhaadheer u gaariyo gambalalkana aad furatid saad u heshid cashare faa'iido badan aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu